wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ali Yuusuf Ali oo markaasi safar ku jooga magaalada Kismaayo ee Jubbaland ayaa maanta booqday Buule Xaaji oo dhawaan markaasi laga saaray al-shabaab isagoo la hadlay hay'adaha amniga dhanka ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale bulshada deegaanka booqashadan oo markaasi loogu kurgalay xaaladda guud ee deegaanka waxa markaasi Ali Xoosh ku heliyay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland sida wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale beeraha iyadoo markaas sidoo kalena qayb ay ka hayeen xubno ka tirsan baarlamaanka iyo hay'adaha amniga ee maamulka Jubbaland. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $0.5 ilaa iyo $50. haddaba macaamiil ku shuba $0 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $50 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1 4 gees airtime xidig 200 4 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo